run ahaantii horta dagaalkan muddaa la saadaalinayay waa tii horay aan ugu hadalnay ruushka ayaa wuxuu rabaa in Ukraine ay ahaato sidii horay ay u ahaan jirtay xilligii midowga Soviet marka waxaa dhacday in Ukraine madaxweynaha cusub la sameeyay ee comedianka ah Zelensky ayaa wuxuu u janjeeraa dhanka NATO iyo reer galbeedka marka ruushka ayaa waxa uu dareemay tahdiid ah in manduumooyinka difaaca ee NATO ay ku soo dhawaanayaan xuduudiisa en talaabooyinka way isxigxigeen waxa ugu horeysay 2014kii ayaa ruushka waxa uu si toos u qabsaday mandiqad weyn jasiirad ah dad muslimiin oo Ukrainiyiin ay degan yihiin ee Crimea la yiraahdo asalkooda Turkiyahay ayuu toos ula wareegay kadibna laba gobol ee dad asalkooda Ruush yahay ama Afruush ku hadla oo degan ama kamid ah Ukrainiyiin ayaa maxaa la yiraahdaa ruushka uu taageeray si ay ugu go'aan 8 sano dagaalkaas socday reer galbeedka iyo ruushka waana u socotay ugu dambeyn ruushka wuxuu go'aansaday inuu soo galo habeenkii khamiista ahayd aan soo dhaafnay ayuu toos wuxuu u bilaabay ruushka duqeymo xagga cirka ah iyo duqeymo uu ka soo qaadayo badda Black Sea maxaa la yiraahdaa Ukraine xuduud la leh oo runtii gantaalo lala yaabay oo reer galbeedka xitaa khubradooda ay leeyihiin waa wax ku cusub caalamka hubka ee hadda aan joogno oo jiilka saddexaad hadda loo yaqaan ku garaacay wuxuu qabsaday inta badan magaalooyinka xuduudda la ahaa laakiin caqabad ayaa waxay ka haysataa ruushka isfidinta ay caqabad ka haystaa maadaama dadka Ukrainiyiinta ay aad u hubaysan yihiin hub gacmeed aad u tiro badanna ay dawladda ay shacabka siisay reer galbeedkana ay ku taageereen hubab yar yar oo anti tangi ay u horeyso iminooyin laakiin saas ay tahay ruushka waxa uu isku dayayaa inuu soo afjaro xukuumadda Zelensky si uu caasimadda u qabsado waxaan ognahay markii hore Cabdiraxmaan in ruushku uu sheegay qorshihiisa inuu yahay taageer inuu siiyo gobolada uu aqoonsaday sida Luhansk iyo Donetsk waxaana hadda muuqata in caasimadii ay ciidamadii ruushka soo galeen oo banaanka ay taagan yihiin maxay tahay qorshaha cusub ee ruushka runtii ruushka horta wuxuu qabjibinayaa handadaadii reer galbeedka caasimadana marka aan dadka u sharaxno wax badan kama foga xuduudda Belarusiya xuduudahaynu ku taalaa oo ruushka u dhow ciidamada ugu badan oo ruushka leeyahay ayaa Belarusiya oo heshiis la ah ama taxaaluf ay yihiin Vladimir Putin ayaa aad u degan marka waxay rabaan inay qabjibiyaan hanka reer galbeedka iyo ay tusaan Ukrainiyiinta inay isku dhiibaan ruushka hadda sida wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka ninka la yiraahdo Lavrov ayaa waxa uu leeyahay annaga ma rabno inaan qabsano Ukraine laakiin waa inay isdhiibaan ciidamada Ukraine dawlad cusub oo taageersan ruushka ayaana ka dhisaynaa marka Putin wuxuu hubsaday reer galbeedka gaar ahaan Mareykanka in aysan tallaabo qaadi karin wax uuna ka hortagayaa in qof dambe oo ama wadan daris la ah ruushka sida Ukraine oo kale inaysan isku dayin inay NATO ku biirto sidaas waa qabjibin marka oo marka qorshuhu hadda wuxuu yahay in caasimadda ay qabsadaan saasay u muuqataa laakiin caqabadaha ka haysta dagaalkii ugu cuslaa ayaa saacadan hadda kula hadlaya ka socdo banaanka magaalada inkastoo ciidamada ruushka ee dalaayadaha ku booda ay caawa aad ugu soo degeen garoon magaalada banaankeeda ku yaala ayna halkaas qabsadeen laakiin waxa iska caabin xoogan sameynaya ciidamada militariga iyo shacabkii wadanka Ukraine qaarkood oo hubkii loo fasaxay ilaa hadeertaan diyaaradaha droniska ee Turkida ee Bayraktar loo yaqaano ayaa ka qayb qaadanaya difaaca magaalada Kiev 43 taangi ay TV-da hadda warinayaan inay maxaa la yiraahdaa ruushka laga gubay ciidan kun gaarayaan ilaa hadda ruushka laga dilay laakiin ruushka ayaa waxay leeyihiin ninka la yiraahdo Igor oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda gaashaandhigga ee wadanka ruushka ayaa wuxuu leeyahay waxaan burburinay 219 goobood oo ciidan ah 17 goobood oo air defenseska meelaha loo yaqaano oo raadarada ah jibnu leeyahay meelaha diyaaradaha laga hago ama misaylada haday wadan kale ay ku soo xadgudbaan laga sheego oo already ay ayagu si ay ugu hortagaan marka meelahaasaan burburinu leeyahay awoodii Ukraine ciidamadeeda difaac dhanna dhulkan la galnu leeyahay laakiin Ukrainiyiinta ayaa waxay sheegayaan ayagana taas wax ka duwan oo ah inay isdifaacayaan reer galbeedku waxay leeyihiin qorshihii dagaal ee ciidamada iyo taliyaasha ruushku ay dejiyeen wuu fashilmay arrintan maxay kula tahay
runtii khubarada markaa fiirisid ama meediyaha laba dhinac ay ugala hadlayaan qaar la safan ruushka iyo duulaankiisa iyo qaar reer galbeedkaba iska ah tusaale ahaan markaad dhanka ruushka aad fiirisid waxay leeyihiin ruushka wuu najaxay wuxuu soo bandhigay hubkiisa ugu awooda badnaa xuduudaha ayuu kasoo ganayaa balaagsii ayuu kasoo tuurayaa marka gantaaladaas ayaa burburinaya magaalooyinkii oo dhan marka waxay carabta u yaqaanaan buni taxtiya kaabayaashii dhaqaalaha ee Ukraine ayuu dhulka la galay ruushka sida daraadeed ruushka ay masaalixdiisa hadda ku jirtaa in micnaha uu wadanka qabsado oo dhan micnaha marka ay ka hadlayaan ayaga dadka khubarada ah laakiin dhanka reer galbeedka waxay sheegayaan in ruushka sirqdii loogu talagalay uu ku dhacay dadka Ukraine gaar ahaan ciidamadana ay ku faafsan yihiin gobolada oo dhan meelo ay ka dhigteen gabaadna ay samaysteen mar hore hadda waxaa la baabi'inayaa loo ugaarsanayaa taangiyada ruushka oo runtii aan la dhayansan karin ayaa sidii maxaa la yiraahdaa xayawaanaadka oo kale ayaa loo ugaarsanayaa diyaaradaha runtii bayrakdaar oo aad loo yasaayay ayaa runtii dhibaato weyn ku haya maxaa la yiraahdaa taangiyada iyo socodka ciidamada ruushka ee isku dayaya inay galaan caasimadda Kiev runtii dagaalkii ugu xumaa ee hadda socdo qaxooti fara badan oo shacab u badan oo Soomaali ku jiraan ayaa magaalada ka qaxaya iyo nawaaxigeedana way markaad eegto sidii hadda wax u socdaan ciidamadan difaacaya caasimadda wada ogtoo madaxweynaha xataa wuxuu yiri ma rabna inay gacanteena ka baxdo caasimadda wadanka Ukraine ee Kiev taasi oo ka dhigan in wali jiritaankii dawladnimadu ay taagnaanayso haddii maamulkii dawliga ah uu ku sugan yahay wadanka madaxweynuhuna uu diiday in laga saaro Kiev oo Mareykanku xitaa ay u ballan qaadeen inay diyaarado u soo dirayaan badbaadiya markaad eegto ruushku ma geli karaa caasimadda oo si fudud ma u qabsan karaa mise waxaad leedahay way ku adkaa doontaa oo waxa laga yaabaa inuu caqabad xoog leh kala kulmo runtii markaad fiirisid awoodda iyo xaddaafka uu ku socdo ruushka inay geli karaan ayaa loo malaynayaa laakiin buundooyinkii iyo magaaladii geesaheeda ayaa maxaa la yiraahdaa ciidamada jooga ayaa aad u difaacaya madaxweynaha Zelensky waa loo ballan qaaday in magaalada laga wado si aan isaga loo dilan ama loo qaban laakiin wuxuu ku adkaystay wadankayga ayaan joogaa isagaan difaacaya isaga ayaan u dhimanaya ayuu leeyahay dadka Ukrainiyiintana wuxuu ku boorinayaa inay isdifaacaan marka Ukraine ma ahan sida ay dad badan u malaynayaan waa dad runtii qab leh oo dagaalo badan ka soo qayb qaatay ruushkan ay is yaqaaniin marka si kasto ay magaalada u soo galaan xitaa ruushka waxay u noqon doontaa maqbara waxa ay carabta dhahan meelihii ciidamada ruushka lagu duugi lahaa ay u noqon doontaa marka la fiiriyo siday u abaabulan yihiin dad ahaan iyo ciidan ahaan iyo waxa ay difaacayaan oo dal kaliya uusan ahayn cirqi Ukrainiyiin ay difaacayaan ay ku soo duuleen dad ruushiyaan ah oo wadanka qayb kala degan iyo dawladoodii oo iyagu markaasi Moscow oo iyagu taageeraysa marka dagaalka waa dagaal la fajibis ah laakiin reer galbeedka ayaa ku fashilmay ballanqaadyadii ay horay ugu qaadeen Ukrainiyiinta inay ka difaaci doonaan taas saameyn ku yeelan doonta mustaqbalka wadamada siday u aamini lahaayeen reer galbeedka in NATO maxaa keenay inay dib u degaan wadamada reer galbeedka oo hadda xoogoodu u noqday inay ku hanjabaan cunaqabateyno kaliya oo aanay jirin tilaabooyin kale oo dheeraada inkastoo wadamada kale ee bariga ku yaala Yurub la leeyahay ciidamo ay geysan NATO sida Estonia iyo meelo kale runtii Slovakia Poland Romania Hungary dhammaan ciidamay geeyeen xataa wadanka aan joogo Jarmalka ciidamo u diray laakiin hadda wadamadaas waxay ka tirsan yihiin manduumada ama ururka NATO ay ka tirsan yihiin secretary generalka ee NATO ee General Jens ayaa wuxuu leeyahay annaga ma galayno mana rabno inaan galno muwaajaha dhab ah oo aan la galayno ruushka laakiin waxaan difaacaynaa xulafadeena marka taas ayaaba su'aal ah oo ah Ukraine xulafadiina ayay ahayd si dadban waxayna rabtay inay ku soo biirto NATO marka maxaad u caawin weyseen marka taas la yiri ayaa wuxuu ugu jawaabay Ukraine weli kama mid ahan NATO sida daraadeed kuma degdegi karno laakiin Vladimir Putin ayaa hadalkiisa loo malaynayaa inay ka baqeen iyo hubkii daraad uu soo bandhigay madaxyadii nuclearka ee shaydaanka loo yaqaan shaydaanka hurda loo yaqaanay uu isagu markaasi baroobay ayaa cabsida reer galbeedka ka keentay ayaa la leeyahay dhinaca Turkiga arinta marinka badda madow ayaa aad ayana u taagan oo waad ogtoo ilaa Ukraine ay codsadeen xitaa inay xiraan goobaha ay soo marayaan maraakiibta dagaal ee Ruushka wararka qaar ayaa sheegay Turkiga inuu tilaabo qaado xiray inkastoo aan ilaa hadda wararkaasi si rasmi ah u soo xoogaysan arinta maxaa ka soo kordhay iyada
runtii turkiga kuma dhaco inuu baddaas ama kanaalkaas uu xiro waayo mucaahaday la leeyihiin ruushka oo 1936 ay samaysteen oo ah markii quwaddii Cusmaaniyiinta la jibiyey oo ataa Turki uu maxaa la yiraahdaa xukunka Turki la wareegay mucaahadad ayay galeen marka kama bixi karaan heshiis siyaasadeed oo dhan kalena way la leeyihiin marka Erdogan ama xukuumadda Ankara waxa haysata laba dhinac kala dooro mar waxay la jiraan ama ka mid yihiin NATO marna ruushka ay saaxiibo yihiin masaalix badan oo Suuriya ugu horeysan ay ka wada shaqeynayaan ayaa jirta marka kuma dhici karo ilaa haddana Erdogan kuma adkaysan mana sheegin inay xirayaan runtii falanqaynta hadda socotana awood uma lahanba waayo ciidamada ruushka ilaa iyo Suuriya Tartus dekada Tartus ay ciidamada ruushka ay degan yihiin oo isagoo difaacaya maxaa la yiraahdaa marinadiisa badda ah marka arrintaas arrin sahlan maahan laakiin idaacadaha ayaa hadda waxay sheegayaan in maxaa la yiraahdaa wadanka Faransiiska uu qabtay doon weyn oo ganacsi shirkad Ruushiyaan ay leedahay oo markaasi badda mareysay maadaama ay ku soo rogeen cunaqabateen marka kullay ma naqaano maadaama NATO ay go'aankaas gaartay inuu Turki fulin doono arrintaas in kale loona adeegsan karo kaliya civilka wax loo yaqaan ama doomanka ama maraakiibta shacabka laakiin kuwa military inay ayaga isdifaacayaan ayaa loo malaynayaa aad buu maasiin Cabdiraxmaan Sheekh Axmed ayuu kaasi ahaa oo qadka toos ugu warramayay oo ku sugan magaalada Berlin ee wadanka Jarmalka Cabdiraxmaan aad baad u maasantay